kulan ay wada yeesheen labada beelood ee walaalaha ah ee wada dega Tuluguleed iyo Jinacsani oo ay kaga hadlayeen sidii loo soo afjari lahaa colaadda sokeeye ee u dhaxaysan labadaasi beelood ayaa ka dhacday magaalada Jigjiga. Lumaan Cadde ayaa faafaynta warkaasi noo eegaya. kulankani ay wada yeesheen labada beelood ee walaalaha ah ee Soomaaliyeed ee markaasi wada dega degmada Tuluguleed iyo Jinacsani iyo waliba nawaaxigeeda ayaa ahayd mid ay ku doonayeen inay dhamaanba ay ku soo afjaraan colaadda sokeeye ee ka aloosneed baryahan dambe labadaasi beelood. waxaana kulankani ugu horeyn ba ka hadlay Sheekh Aadan Ismaaciil Xirsi oo ah gudoomiyaha guddiga nabadeynta labada beelood ayaa halkaasi ka soo jeediyay awaamirta looga baahan yahay inay fuliyaan labadani beelood ee walaalaha ah. waxaynu maalmahan ku jirnay beelaha walaalaha ee Geriya Jaarso labada beelood ba si gobanimo iyo ehelnimo iyo nabadoonnimo ah ayay u qaateen mas'uuliyadda aan weydiisanay inay siiyaan oo ah xabad joojinta. waxaynu qaadanay in xabad joojin la sameeyo. waxa weeyaan xabad joojinta khiyaarta sharafta leh ay qaadatay ee si buuxda u qaadatay waxa ay ku shardisan tahay waqtiga xabad joojinta ay dhaqan gasho ciddii ku xadgudubta xabad joojintaas waxaa saaran ganaax 1 milyan oo bir ah iyo shakhsiga dembiga geystay ama shakhsiyaadka dembiga geystay oo si gaar ah iyaga sharciga loo horgeeyo. dhanka kale waxa ayagana halkaasi ka hadlay isla markaana arintani soo dhaweeyay odayaasha ka kala socday labada beelood oo cadeeyay in diyaar ay u yihiin nabadeynta iyo soo afjaridda khilaafkani u dhaxeeya labadani beelood ee walaalaha ah ee waqtiga dheer soo jiitamay. labada reer dhibaatada dhex dhacday cid walba ogtahay dhibaatadaasina khasaaray labada dhinac gaarsiisay. khasaarahaasi inuu soo socdana cidna dan maaha. wiilkii dhintayna kan kale ama aftibuu yahay ama seedibuu yahay ama waa mid dhinac labada reer baa laga ooyay ama hadduu qof dhinto. taasina waxa weeye waa itixaani masiibo maartay yacni annaba wanaagsaneen. kulka waxa weeye ergeeda iyo guddida waan aad baan maartay ugu mahadnaqaynaa iyo dowladda. waxaan leeyahay labada reer walaalaha ayaan anigu maartay odagooda ahaa waxaan soo jeedinayaa inay nabadgelyada qaataan. nabadgelyaduna aagun maaha. Jinacsani iyo Tuli labadaba nabadgelyada laga qaato weeyo. waxaan leeyahay waxa umusha u dana ilmaha u dana fariin waxaan u gudbinayaa baaqaa nabadeed aan qaadanay inay dadka islaamkii horta noogu alla baryaan in ilaahay noo gunto uu noo aqbalo guddidaasina ilaahay uu ka dhigo guddidii khayrka waday ee dhibtaas soo socotay joojinaysa in ilaahay ka dhigo. waan iigu ducaynayaa labada beelood ee walaalaha ah ee tima iska dhaxbaxaya ee abti iyo seediya ee kolka aqalkan laga ooyo aqalka kalena laga ooyayo. waxaan anigu leeyahay khasaare mooyaane faa'iido kama inaan helin hanu hogaansanaano. waxa ayaguna aanu wareysiyo aanu la yeelanay isla markaana faahfaahin dheerada naga siiyay kulankan la taliyaha madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida dhanka amniga mudane Bedel Xiisa iyo ku-xigeenka hoggaanka nabadgelyada iyo cadaaladda ee dowladdeegaanka Soomaalida mudane Cabdullaahi Maxamed Cabdi. dhammaan shacabka dowladdeegaanka Soomaaliyeed iyo shucuubta aan la hadlayno ee Geri iyo Jaarso oo dhanba inay nabadaas ay odayaashu qaateen adkeeyaan ay qaataan dhibaatada taagan si loo soo afjaro caruurta iyo ubadka iyo odayaasha gaadhaya inay maanta noqoto mid ay ku soo afkoodo heshiiska nabadeedna laga qayb galo. go'aamadaasina waxay soo bixi doonaan heshiisku mar aliyaala marka gogashaas soo dhamaatay gogasha dir dhaba la dhigo. maanta dad walaalaa weeye dad ehela weeye taasaan maanta ku rajo weynahay. waxaanu anagu adkaynaynaa oo aan aad iyo aad ugu celcelinaynaa xabad joojintaas ciddii jabisa go'aanada ay odayaashaasi ka soo saareen ganaax hadday noqoto hadday xadhig noqoto hadday xabsi noqoto hadday maxkamadayn noqoto tallaabooyinkaas ay odayaasha dhaqanku noo soo gudbiyeen ee aas-aaska u ah nabadgelyada deegaanka iyo beelihii isku hayay inaannu tallaabo ka qaadi doono ciddii jabisa go'aanadaas. kulankani ay wada yeesheen
labadani beelood ee Soomaalida ah ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa oo kala ah ee markaasi ay wada yeeshaan waana mid beej cusub u furaya nabadeynta iyo wada noolaanshaha labadani beelood ee walaalaha ee markaasi wada daga Tulli Guuleed iyo Jinacsanay waxaana la filayaa inuu kulankani uu noqdo kii ugu dambeeyay ee markaasi lagu soo abjaro colaadani sokeeye ee markaasi ka jirtay labadaasi beelood